الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد فالسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوتي في العقيدة مرة شرحنا اما كلمة من نصر النبي عليه الصلاة والسلام أصرمت أها درس ولا لضع laakiin waa kana xuseeni maashiisii la tegi waa waxaan isku dayi doonaa inaan waxoogaa taariikhdii nabiga calayhi salaatu wasalaam masiiradiisa inaan wax ka nidhaano waxaanan isku dayi doonaa inaan qaab aan ilqaynayo aanan kitaabka farta marinaynin inkastoo dadku ay inta badan codsanayeen kitaabka raxiiqulmakhtuum la yidhaahdo aniga sawigala macaan yahayba akram diyaa ilcumar ee asiira nabawiya saxiixa kiisa la yidhaahdo laakiin waxaan isku dayi doonaa un bal cumuuman labada kitaab baynagu adeegsanaynaa wixii oo kooban inaynu soo bandhigi doono waayo siirada nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa ay tilmaamaysaa waa diintii oo la dhaqan geliyey marka waa dadkii diinta dhaqan geliyey nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii oo ah sifadii ugu saxsanayd ee loogu dhaqmo islaamka innaga waxaynu haynaa hadda isagoo qur-aan iyo sunno ah oo qoraal ah laakiin marka kane waxa weeyaan isagoo camaliya oo dad ay matalayaan qur-aanka iyo sunnadii yani dad ama bashar dhaqankiiba waxay matalayaan qur-aanka iyo sunnadu siday u ekaayeen saa daraaddeed way fahamkeedu wuu ka dhow yahay qofku inuu markiiba suuro fiican ka fahmi karo diintu siday ku faaftay ama wixii ay siday ama risaalada iyo macnaheediiba waxaan isku dayi doonaa markaasi balsay labada sheekh usoo naqliyaan inta badan inaanu soo guuriyo haddii ay jiraan mawaadiic ama meelo loo baahanya in gaar loosii tiltilmaamo insha allahu haddaynu awoodno oo isku dayi doonaa cumuuman culamada muslimiintii markay siirada ka waramayaan waxay u sameeyaan gogol dhac ama hordhac hordhacaasi waxay ka bilaabaan ama waxay ku tilmaamaan wixii nebiga ka horreeyay calayhi salaatu wasalaam hordhaca waxaa looga dan leeyahay inay dadku fahmaan bulshadii uu nebigu u yimi caynkay u ekay si aada u garan karto inta ay guurtay bulshadani markii dambe siday u ekaatay yani waxaad qiimeyn fiican sawiri kartaa nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii uu soo saaray iyo mujtamacii muslimiintaha kawinmay siday u ekaadeen inta uu u jiray mujtamacii hore ee jaahiliga ahaa oo markaad ka jaahiliga ah suuradiisa aragto ayaad garanaysaa dadkani inta ay guureen inta ay leekay waxaa kaloo runtii dhadhawaanayo aad garan kartaa maadaama mujtamac nooca u egba la raray oo islaamnimada ay bedelka intan lee ku samaysay inaanu jirin mujtamac dunida ka mid ilaa in la rari karo noocan loo rari karo ay ku xidhan tahay uun sida alla inoo waafajiyo subxaana wa tacaala iyo sida dadku juhdi uu bixiyo o dadka diinta tan ugu yeedhayaan qaybtaa hore markay ka waramayaan culamada taariikhda islaamiga ah qorta qaarba sibay u tilmaamaan qaarkood ilaa aadam bay isku dayaan taarikh muujisa inay kasoo sheegaan yani min aadam kutubu taarikh in badan oo kamidi nebi aadam bay kasoo bilaabaan qaarkood waxay ka bilaabaan dhulka iyo cirka iyo sidii alla u sameeyey waa ka ilaa ay soo gaarsiiyaan laakiin taariikhahaas hore ee qadiimka ah waxoogaaga yaree waxyigu sheegay mooyaane inta badani maxfuud maaha sidaa awgeed labadan kitaabee horteena yaalla midba inbuu soo koobaya laakiin waxay isku dayi doonaan inaan si fudud u wada guud maro kow ummadda carbeed iyo dhulkay degto waa dhul macruufa carabina intan jaziira alcarabiya la yidhaahdo unbay taarikhdeeda oo dhan degi jirtay carabta taariikhiyan markay culamadu qaybinayaan ilaa 3 qaybood bay ka dhigaan carab ay yidhaahdaan waa alcarab albaa'ida ama carabtii tirtirantee hore ee gabowday waa caad iyo thamuud iyo kuwan qur-aanku ka waramo iyo carab ay ku tilmaamaan alcarab alcaariba oo ah qaxtaaniyiinta nimanka la yidhaahdo carabta gasha iyo carab almustacraba oo ah kuwii nebi ismaaciil calayhi salaam ka abuurmay ama cadnaan cidda gasha ah inkastoo culimmada badh ay leeyihiin qaxtaan iyo cadnaan labaduba ismaaciil bay galeen waana sida uu rajaxaya ibn xajar alcasqalaani xafidahu llah raximah llah alxaafid ibn xajar waa sida uu rajaxayo oo isagu wuxuu leeyahay labada kooxoodba qaxtaan waa min aali naabit binu ismaaciil buu qabaa
halka ay qoladan kale ka yihiin cadnaan ibnu ismaaciil ay ka galayaan. marka aynu soo koobno had iyo goor taariikhda carabeed marka la tilmaamayo maalan qaxtaaniyiinta nimanka la yidhaahda asal waxa uu ahaa yaman, laba qabiilo waaweynna waa u qaybsanaayeen, niman ximyar la yidhaahdo iyo niman kahlaan la odhan jiray. kahlaan inta badan waa guureenoo shaam iyo masar iyo dhulkaasi dadkii degi jiray markii dambe ayay u badnaayeen. ximyar intaa u badnaa dadka meesha tan kusoo hadhay. carabta kale ee mustacrabka ee cadnaaniyiinta loo nisbaynayo waa carabta markaasi nebi ismaaciil si dhaba uga abtirsata. nebi ismaaciilna waa ina nebi ibraahim calayhim assalaam. nebiyullaahi ibraahimna saynu taariikhda ku wada hayno dhulka ciraaq buu ka soo baxay ama dhulka ciraaq buu u dhashay, dabeetana falastiin buu u hijrooday, kadibna wuxuu yimi maka, halkan markii dambe laga sameeyey. waxaanu keenay saynu wada naqaano xadiidkii bukhaari ku yaallay ibnu cabaas uu warinayay, mawquufka ibnu cabaas ku ahaa siduu sheegayey. haweenaydiisii haajiro la odhan jiray iyo ilmihii ay dhashay oo nebiyullaahi ismaaciil calayhi salaam labadoodaasi ayuu maka keenay. dabeetana maka ayuu kaga tegey isagoo aan waxba uga tegin, uga tegay oo qura sibraar biyo ah iyo mid timir ah, ama laba weel oo midna biyo ku jiraan midna timiri ku jirto, oo u sheegayna inuu ilaahay subxaana watacaala amray inuu halkaa kaga tago. sida aynu taariikhda ku haynana waxaa la tilmaamaa ibraahim inta la hubo 4 jeer oo dambe ayuu meeshaasi kusoo noqday. yani markaa hore ismaaciil keenay, mar labaad ayuu yimi oo ah markan ay nusuusta qur-aanka ka warramaysa uu rabay inuu qalo ama inuu gowraco wiilkii ismaaciil ahaa. falama aslama watallahu liljabiin وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. marka الله سبحانه وتعالى kaga warramayo oo ay qolada kitaabka tawraad haysata ama kana iminka tawraad ku sheegayaan sifru takwiinkooduna uu ku sheegay inuu dhowr iyo 10 jir markaa ahaa nabiyullaahi ismaaciil. mar labaadkii uu kusoo noqdayna oo markay axaadiistu ka warramaysaa inuu yimi oo dabeetana u yimi isagoo uu nebi ismaaciil ka maqan yahay gurigiisii oo gabadhu qabay uu ugu yimi, dabeetana uu weydiiyey xaalkoodiiyo siduu yahay oo ay sheegatay markaasi in dhib badan ay haysato, nolosha ay cidhiidhi ku tahay, oo yidhi waa tegayaa inankaygii fariintaa gaadhsiiya. waxaad ku tidhahdaa aabbaha wuxuu ku yidhi catabada albaabka ama kaabada guriga iska bedel ayuu ku yidhi aabbaha. nebi ismaaciille markii uu yimi ay gabadhii u warrantay wuu fahmay aabihii warkii uu uga tegay oo ahaa gabadhan iska sii daa, mid khayr badan maahe. dabeetana waa iska sii daayey. waxaa kaloo riwaayadka xadiidku sheegayaan mar kale inuu ismaaciil yimi nebi ibraahim mar saddexaad inuu kusoo noqday dhulkaasi. markan saddexaadna wuxuu yimi isagoo ismaaciil gabadh kale uu guursado, tii hore uu furay. gabadhii kale markuu la hadlayna ee uu xaalkooda weydiiyeyna waxay ku tidhi waa fiicannahay, iyana fariin buu u faray oo wuxuu ku yidhi waxaad ku tidhahdaa inankaygii waa tegayahay, isagoo maqan markana buu yimi oo safar buu jiro. wuxuu ku yidhi fariin labaad xaafadaadanama yani gabadhan hayso waraa buu uga tegey. mar afraad bay taariikhdu sheegaysaa, taariikhda suganee la hayo axaadiistiiyo qur-aanka oo ah markuu kacbada dhisayey. uu ismaaciilna nin weyn ahaa, isaga iyo ismaaciil markay kacbada dhisayeen 4 jeer bay yidhahdaan buu nebi ibraahim kusoo noqnoqday meesha iyo markaa hore uu kaga tegey. taariikhda carabeed cumuuman markaaynu tilmaamno nebigu calayhi salaatu wasalaam dee wuxuu ka tirsan yahay siduu axaadiista saxiixa ayba ku sugnaatay. ilaahay wuxuu doortay buu yidhi nebi ibraahim, ibraahimna wuxuu doortay wiilkiisi ismaaciil ahaa, ismaaciilla kanaana laga doortay, kanaanana quraysh baa laga sii doortay, qurayshna reer banu haashim baa laga doortay, reer banu haashimna anaa layga doortay buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam. markaynu taariikhda carbeed cumuuman eegno waxay iska koobnaayeen qabaa'il bay ahaayeen. 3 meelood baa iyada boqortooye ka jiri jirtay, boqornimo loo caleema saaro. 3 meelood ayay iyaga ka jiri jireen. waa boqortooyadii yaman ka jiri jirtay ee gabowday, boqortooyada yaman oo waktiyo kala nooca soo martay. taariikhaha laga sheegaana runtii taariikha saa usii sugan maaha,
laakiin ilaa 4 boqortooyo oo kala dambeeyay baa la sheegaa oo midba muddo intaasoo qarniya intay socotay inay tirtirantay kuwa ugu dambeeyuun Yaman waa Himyar qabiilka la oran jiray oo kamid ah qaxtaaniyiintaasi tay lahaan jireen boqortooyadoodii macruufka ahayd ay lahaan jireen boqortooyinka uu sii dambeeyay oo cilmiga taariikh ay ku sii tilmaamaan inay ahaayeen kuwii markaasi ugu dambeeyay ee ka jiri jiray wadanka Yaman oo la soo gaarsiiyay inay yihiin kuwii ay ka dhasheen markaa Dunawas nin la oran jiray Yahuudi marka mid intuu qabsaday in Najraan oo Kristaan ahaan jirtay lagu laayay way culimada qaarkood u nisbeeyaan inay tahay sababtii ay ku soo degtay qutila asxaabi al-ukhdud an-nar ذات الوقود على كل حال marka soo duubno Yaman boqortooyo ka jiri jirtay Hira meesha la yiraahdo Iraq kamidana boqortooyo ka jiri jirtay Shaamna boqortooyo ayaa ka jiri jirtay Hijaaz iyadu marnaba boqortooyo caynkaasi kama jiri jirin imaarooyin baa ka jiray baa la iska yiraahdaa laakiin boqortooyo rasmi kama jirin marka aynu soo qabanno magaalada Makka oo ahayd magaalada aynu oran karno ee taariikhda islaamiga ku weyn una baahan waxoogaa yar inaynu ka sheegno qaab nololeedkeedii markii aynu wada naqaano waa magaalo ku ooli jirtay meel buuraleeya oo laba buurood hareeraha kaga wareegsan yihiin oo sida bil oo kale ay ku yihiin aan Quraysh baana degtay meesha tan gaar ahaan Qusay ibn Kilab ninkii la oran jiray oo kamida Quraysh nabiga kaleey salaatu wasalaam ku aftirsada kamida Qusay ibn Kilab ayaa degay meesha tan Qusay ibn Kilab waxa yiraahdaan waa ninkii koowaad ee awooda inuu googooyo dhirta Kaabada iyo meesha xaram ka baxda lama gooyn jirin dadkuna inaan la gooyn bay u haysteen haddana sharcigu saasoo qaba laakiin Qusay ibn Kilab waqtigiisii gooyay baa la yiri markuu googooyay ayuu dabeetana soo dajiyay xaramka gudihiisii markaas buu Quraysh u kala tilmaamay meel ay kala degdegto oo inay xaggan deg in kala xaggan dajiyay in badan u dajiyay Quraysh maal qabeenkeedii dadkeedii hantiilayda ahaa inta badan Batha oo Makka ayay degi jireen Batha oo Makka waa inta godan baa la yiraahdaa ee Kaabaduna ay agteeda ku taalo marka aynu eegno Makka iyo maamuladeedu si kala dambeeyeen akhiiran waxa qabsaday nimankaasi Quraysh la yiraahdo oo waday ka yahay ninkaasi la yiraahdo Qusay ibn Kilab hareeraheedana waxa deganaa qabaa'il kale oo ay ka mid yihiin Kanaana oo ay ka tirsantay Quraysh waa laf kamid ah qabiilkaasi Kanaana la yiraahdo Quraysh markaasi waxay noqotay dad isku dayay in ay tijaaro adeegsadaan baac mushtar ayuu ahaa awoodooda ugu weyni magaalada Makka la yiraahdana si fiican ayay u dageen qabaa'ilkii hareeraha ka deganaana waxay la galeen heshiisyo nabadgeliyeed dabeetana tijaaro ayay samaysteen marna u baxda Shaam iyo Iraq marna xaggan Yaman u baxda waxay u fakareen tijaaradoodaasi say u suurto gali lahayd dabeetana waxay u sameeyeen wax ilaaf la yiraahdo oo ah wadooyinka ay tijaaradoodu sii marto inay la yeeshaan qabaa'ilka dega heshiisyo nabadgelyo la galaan isla markaasi inay wax cashuuro kala oo ay ilaaf u bixiyeen inay ka siiyaan isla markaasina inay adeegsadaan xataa nimanka madaxda ah ee qabaa'ilkaasi u madaxda ah tijaaradooda inay saham ka siiyaan sheer inay kala qayb gali karaan inay siiyaan si tijaaradooda ay u socoto camalkaasi midaan heshiisyada la galay ee ku saabsanaa tijaarada Quraysh ay xoog ku noqotay ninka isna sameeyay waa Hashim ibn Abd Munaf oo isna kamid ah awowiyadii nabiga kaleey salaatu wasalaam yaani Qusay waa awowiyadii hore ee nabiga kaleey salaatu wasalaam oo ninka Quraysh ma ka dajiyay tijaaradooda ninka isugu xidhayna waa Hashim ibn Abd Munaf oo isna kamid ah nabiga kaleey salaatu wasalaam awowiyadii tijaarada yaani iqtisaadka markaynu soo duubno wuxuu u salaysnaa koow qayb tijaaro yahay sanaacada ama farsamada waxa la yiraahdaa aad bay ugu yaray waxoogaa hubkay samaysan jireen iyo dhariyaha iyo waxoogaa sariiraha iyo guryaha waxa caynkaasi kamida in xoola raacataana way lahaan jireen iyo in ugaarsada laakiin asaaska dhaqaaleed ee Makka lagu deganaa waxay ahayd magaalo tijaareed magaalo baac mushtar bay ahaan jirtay
maadaama ay magaalo baac mushtari ahaan jirtay baac mushtarkana asal uu yahay nabadgelyo quraysh waxay ahaan jirtay meel degan meeshay degantahay maka ahi dad badanna waxay kula jirtay mucaahadaad ama heshiisyo waxaanay ahayd un tijaarada waxa ugu badan ee ka shaqayso heshiisyada ay qabaa'ilka kale la gashayna waxay u fudaydisay in tijaaradooda ay tijaara duwaliya noqon karto oo ay duwalka kale iyo dhulka kale la baayac mushtarayn karaan weliba dagaaladii ka dhaxeeyey Persia iyo Romanska ama labadii dawladood ee waaweyn ee markaa jiray ina waxay carqalad galiyeen dariiqii iyaga u dhaxeeyay tijaariga ahaa ee isku xidhayay Yurub ama waqooyigaas oo dhan iyo Asia dariiqa isku xidhaa inta badan Sham iyo Iraq iyo dhulkan baa la mari jiray dagaaladii labada dawladood u dhaxeeyay baa xidhay taasi waxay sababtay baa la sii yiraahdaa in aan dariiqi Makka uu aad u xoog bato tijaaradu inay marto oo mesela India iyo dhulka alaabta laga keeni jiray waxay iman jirtay baa la yiraahdaa badda ay soo mari jirto Yemen bay iman jirtay dabeetana Yemen bay Makka ka tagi jirtay Makka ay ka qaban jirtay markaasi Sham iyo xagga Roman isku ka taliya saasi daraadeed waxay noqdeen dad isku xidha mujtamacaad badan oo tijaari ah ayay Makka ahayd reer Makkana maadaama ay tijaaradaasi in badan ka shaqeynayeen waxay noqdeen dad maalqabeen badan uu ku jiro oo reer Makka rag baa kibirku gaarsiiyay weelkoodu dahab wax ku cabi jiray weelashay wax ku cabaan dahab ay ahayn Abdullah ibn Jadaan in la oran jiray koobku wax ku cabaa dahab uu ahaan jiray marka Qurayshi waxay yeelatay tabaqaad kala sareeya tabaqo tijaarada raasul maalka weyn haysata oo heshiisyada kula jirta dawladaha ama qabaa'ilka iyo wadooyinka dadka dega oo waliba tijaaradoodu qaab shirkad oo kale ay u dhisan tahay oo ah qaafilo aad u badan la israaciyo oo dadkoo dhanna shares la siiyo laga qayb galiyo inay tijaarada si ka wada qayb gali karayaan oo dadka danyarta aan wax badan haysan ribo wax ku siisa nidaamka ribowiga ee bangiyadu isticmaala iyo tabaqaad aan waxba haysan oo aad u fuqara ah oo aad u waxtar aan waxba haysanin labada kooxoodba way deganaayeen dekadaha isticmaali jireen inta badan meel shacbiya la yiraahdo ay ahaan jireen oo ay dekadan jideemka taqaaniin ee macruufka ah waxay bilaabantay baa la yiraahdaa khilaafadii Uthman radiyallahu anhu ayay bilaabantay markaasi Makki waxaan leenahay umuuman waxay ahayd magaalo baayac mushtar oo xaggan xabashida iyo Afrikana waxa ka iman jiray buxuurta iyo dhirtan la shita iyo baalgorayeedka iyo maxaa la yiraahdaa foolmaroodiga iyo hargaha iyo ninka madoow la adoonsado xagga Shaamna waxa ka iman jiray baa la yiraahdaa inta badan waxa la cuno daqiiqda iyo sarreenka iyo saliidaha iyo khamriga iyo cinabka iyo waxaasina xagga Shaam bay uga iman jireen xaggan India ama India dhankeedana iyaga waxa uga iman jireen inta badan looxa iyo filfisha iyo baharaadka yani waxyaabahan yaryar raashinka lagu darsado tirada badan leh dharka iyo xariirta iyo waxaan la tolo weelasha waxaasina inta badan waxay ka iman jireen dhanka kan India tijaaradaas bay u dhaxeeyeen siyaasadda Quraysheedna umuuman waxay ahayd siyaasad ku salaysan deganaanshiyo iyo in loo dhimriyo iyo heshiisiyo in la galo oo may ahayn dad dagaal badan waayo taariikhda Quraysh waxay yiraahdaan qabla intaanu nabigu iman calayhi salaatu wasalaam ee aanay dagaalka u xidhxidhan horteed taariikhan waxa loo hayaaba afar dagaal waxay galeen afarta dagaalna waa xuruub ilfijaar afarta loo oran jiray afarta dagaalna inta badan waxa la yiraahdaa munaawashaad yaryar baaba iska ahaayeen yani dagaal xataa aad u waaweyn ma ahayn ee dagaalo waxoogaa loo lama yaryar oo aan saa u sii badnayn buu ahaa saadaradeed waxa la yiraahdaa Qurayshi intan ka horeysay islaamka may ku badnayn dagaalku siyaasadooduna waxay ku salaysnayd in dadka heshiis iyo tijaarada in shirkad laga siiyo iyo lacag iyo qaabkan fudaydka ah ay ku salaysnayd waliba waxa kale oo siinayayna mudnaan kale waxay deganayd markas diiniyo dadku diin ahaan buu uga dambeeyay markas diiniya ayay deganayd oo diintii Nabi Ibrahim laga dhaxlay wixii ka soo haray meesha uu sii yaalay inkastoo markii dambe waqtigii ay khuzaaciyiintu ka talinayeen meesha tan ay diinta qaldeen gaar ahaan ninkii la oran jiray Amr ibn Luhay al-Khuzaaci oo axaadiista saxiixiiba ay ku soo aroortay inuu nabigu lahaa ka waxaan arkay isagoo naar
xiidmihiisa ku daba wareegaya buu nabigu tilmaamayay yani ahlu naarku ka mid yahay ninka kani waa ninkii koowaad ee asnaamta keena maka sanamkii hubal la odhan jiray buu kasoo iibsaday sham dabeetana tuurta kusoo qaatoo keenay kadibna asnaam badan baa la keenay ilaa iyo kacbada agagaarkeeda uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ka dumiyey 360 sanam 360 sanam oo la caabudo sanamadaas iyo waxaasi way tiro bateen qaarkood dhagxan la qoray bay ahaayeen qaarkood xataa waxa iska ahayd un meel yaroo buuro taagan oo dhagaxun ku urursan yihiin مثلا sanamadii asaaf iyo naaila iyo waa kuwii marwe iyo safwe iyo meelaha yaalay iska kor yaroonoo kuusan oo dhagxan saarsaaran tahay ayay ahayd sanam caabudkan iyo waxa kanina sida bukhaariba sheegaya xadiidkii abu raja al-utaradi saxaabigii la odhan jiray uu tilmaamayay waa kii sheegaya yani dadku say sanam caabudkan iyo waxa kan xad bay ka gaadheen uu lahaa marka aanu weyno xataa dhagax intaanu ciid isku ururinaa baanu neef adhiya ku lisnaa buu yidhi markay isku dhegtaan caana idaadoo kale marka lagu liso oo isku dhego ciidda yari ay sii dhagaxoo kale u ekaato baanu sanam ahaan u caabudi jirnay yani xad markaa xataa dhagax la waayo in caana lagu lisi jiray ciidda inay isu yaro dhegto uun aad waxaa u batay asnaamtaasi iyo cibaadaadkaasi la halmaala sanamadaasi markaynu usoo noqono magaalada maka iyo dhismaheeda iyo qaabkay u salaysnayd waxaynu leenahay kacbada ay deganaayeen baa dad badani kaga dambeeyey oo qurayshi manzilo ay ku haysatay markaynu eegno maka iyo dadkii u kala dambeeyeyna jurhum ayaa taariikhda inta la hayo kuwii ugu horeeyay ahaayee nebi ismaaciilba uu ugu yimi agagaarkooda iyagoo degan dabeetana khusaaca dabeetana quraysh baa degtay quraysh weliba qusay ibnu kilaab ninka la yidhaahdo markaynu eegno taariikhda maanta la hayo kama badna maalan adabka jaahiliga carabeed iyo waxaa marka la eego waa ilaa 150 sanadood qabla alislaam taa macnaheedu waxa weeyaan 400 iyo waxoogaagii meelahaasi ayay u badan tahay taariikhdu wixii ka dambeeyay si fiican loo hayo ee meesha tan taalay waxaana bilaabay uu ninkaasi qusay ibnu kilaab la odhan jiray markuu meesha tan degay qusay ibnu kilaab markuu dhirtan googooyay quraysh meesha dejiyey oo inta maalqabeenkina magaalada meesha gudaheeda ay sii deganayd dacaladeedana inta aan waxaysan baa inta badan deganayd wadaaiftii diiniga ahaydna isaga ayaa reerkooda u qaybqaybiyey ama caruurtiisii qusay ibnu kilaab waxa ugu weyne uu meesha tan ka sameeyey waxaa ka mid ahaa daaru nadwa oo ah guri ay qurayshi ku shirto oo la isugu yimaado oo taladoodu ka go'do gurigaasi oo runtii ay yidhahdaan waa waxyaabihii saaciday inay maki ahaato meel nabadgelyo iska salaysan waayo mar haddii la hayo meel waayeelku intuu isugu yimaado lagu shiri karo arrinta lagu gorfayn karo qadiyad kasta oo dhacda mar haddii ay soo gaadhi karto waayeelkoo loo soo gaadhsiin karo waa arrin inta badan nabad iyo xal ku dhammaan karta qusay ibnu kilaab markaa waxyaabaha caanka uu sameeyey waxaa ka mid ahaa daaru nadwa meesha la yidhaahdo oo uu ka sameeyey guri yar oo xagga albaabka kacbada u furan oo ay odayada quraysheed oo dhan fadhiistaan oo lagu shiro waxaa ka mid ahaa inuu liwaaga quraysheed isagu markaasi gacanta ku dhigtay oo inaan dagaal geli karin qurayshe ilaa iyo liwaagan ay hayaan mooyaane waxaa ka mid ahaa yani xijaabada oo ah furahan kacbada inay iyagu haystaan iyo sadanada iyo cidda u wadaadada iyo intan oo dhan inay iyagu gacanta ku hayaan waa xijaabadii oo ka mid ah rifaadada waxa la yidhahdo rifaadat lxujaaj oo ah xujaajtu markay yimaadaan waxa aan waxaysan in diyaafo loo sameeyo meel ay wax ka cuni karaan dadkan soo xajaya waayo xajku waa cibaadaadkii uu ka tegay nebi ibraahim marka calayhi salaam ilaa nebi ibraahim siaan ubaa loo soo xajayay marka xataa intaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iman waa la xajayay laakiin xajkii oo la qalday oo shirkiyaad iyo waxaan diinta ka mid ahayn lagu daray ayaa joogay marka xujaajta iyo dadkan isugu yimaada ayuu wuxuu u samayn jiray diyaafa meel xawd ay ka cabaan oo biyo uu macaaneeyo timir iyo zabiib uu ugu daro iyo cunno la siiyo wuxuu u sameeyey yani siqaayat lxaajka rifaadada xijaabada waxaasoo dhanna isaga gacanta ku hayay baa la yidhahdaa iyo caruurtiisii qaar ka mida buu gacanta usii geliyey maalan daaru nadwaha uu sameeyo kale baa la yidhaha albaab bay lahayd xagga masjidka kacbada usii jeeda waa meeshii umuurta dagaalka iyo nabadda iyo waxaasoo dhan lagu go-aamin jiray waa meesha ay ku samayn jireen cuquudoodii maalan wixii heshiise ama guur ha noqoto ama heshiisyada dhaqaale iyo waxaan la kala baac mushtarka socda ha ahaato waxaana fadhiyi jiray baa la yidhaha mala-ulqowm madaxya waaweynta reerka nin 40 ka yari ma fadhiisan jirin bay sheegaan culamada taarikh markay ka warwaramayaan daaru mashhuura bay ahayd
runtii qusay ibnu kilaab ninkaa la yidhaahda ee quraysh ka tirsanaa magac weyn buu ku yeeshay quraysh dhexdoodii caadaadkii iyo dhaqamadii iyo wixii uu gooyey qurayshna diin bay ka dhigteenba in sidooda loo raaco aan waxba laga qasin ama ha noqoto siduu ugu qaybqaybiyey arrimahaasi maamulka ah ama ha noqoto wixii caadiya dhaqan uu uga tegey tolkii waxay ka dhigteen uun wax diin oo kale ah oo sideeda loo ilaaliyo gaar ahaan nimanka odayada ee quraysh ninkaas wixii uu go-aamiyey iyo go-aamadii waagaa la qaatay sideeda ayaa loo qaatay isaga dabadiina waxaa soo baxay runtii rag ka mid ah abnaadiisii ama dadkiisii oo ka mid yahay hashim ibn cabdimunaaf oo uu ka mid yahay almualib oo ka mid yahay cabdilmualib oo ka mid yahay aba aalib oo dhammaantood aan odhan karno un waxay sii kala dhexleen inay sii haystaan wixii uu aabahood ka tegey ee ku saabsanaa qadiyadaasi maamulka maalan hashim ibn cabdimunaaf ibnu qusay yani qusay waa awowgii waa ninkii bilaabay heshiisyadana in lacag loo qoro dadkan wadooyinka ee tijaaradooda ay martaan ee ilaafka waxaan loo bixiyey ee ka dhigay tijaaradii quraysheed inay noqon karto mid duwaliya oo ka baxsan meeshan yaroo dhan waana ninkii u qoday baa la yidhaha ceelal badan buu u sameeyey reer mako ay ka cabaan walaalkii oo almualib ahaa ayaa ka dhaxlay markuu isagu dhintay qabsaday mualib wuxuu ku caan ahaa baa la yidhahdaa nin dulmiga neceb buu ahaa nin akhlaaqda fiican dadka fara buu ahaa nin cibaado badan buu ahaa quraysh markaa oday ay ka dambeeyaan buu ahaa waxaa ka mid ahaa hashim inankuu dhalay ee mualibna adeerka u ahaa ee loo bixiyey cabdilmualib magaciisa caadiga shayba baa la odhan jiray oo waxaa la yidhaahdaa hashim ayaa qabtay baa la yidhaahdaa hashim markuu guursaday ee wiil dhalay ayuu ka tegey wiilkii uu dhalay wuxuu kaga tegay yani isagoo yar ayuu hashim dhintay dabeetana odaygan mualibaba waa dambe loo sheegay isagoo wiilkii 6 jir meelaha maraya ama weynaaday wuu doono wuu soo qaaday markii uu keenayna carabtii ama quraysh waxay aragtay wiilkan yar uu sito dabeetana wiilkii waxay isaga bixiyeen war waa adoon yar oo isagu keensaday bay cabdilmualib bay u bixiyeen yani magaciisa asalkii shayba buu ahaa mualibna waa adeerkii oo hashim la walaala oo soo koriyey markaasi oo keenay dabeetana cabdilmualib buu iskaga caanbaxay cabdilmualibna wuxuu runtii nin aada ugu caanbaxay deeq oo shaybat alxamdi bay markay doonaanna odhan jireen waanu kaloo ku caanbaxay waa ninkii u qoday mar labaad ceelkan zamzamka ah yani zamzamku nabiyullaahi ismaaciil ayaa ka tegey laakiin waxay yidhahdaan khusaaca berigii meesha laisku dildilay ee ay arkeen inay ka baxayaan bay aaseen ama dabooleen ama tirtireen marka meesha waa la waayey waxaa la sheegaa inuu riyooday cabdilmualib ilaa 4 jeer uu riyooday markii ugu dambaysayna in loo tilmaamay meeshay tahay riyadaasi sanad xasana bay runtii kusoo aroortay ilaa caliy bn abi aalib ka soo aroortay dabeetana ceelkan buu u qoday ceelkii zamzamka markuu qoday ee soo saarayna waa muran dambaa ka yimi oo quraysh baa ku qabsatay quraysh markay ku qabsatayna qaab bay u garnaqsadeen calaa kulli xaal insha allah waa laga yaabaa inay mar dambe aynugu soo noqoto waxaan uga jeednay intan aynu ka warramayno oo dhan cumuuman inaynu ka waranno qaabkay u dhisnayd magaalada maka iyo sidii loo joogay laakiin taariikh ahaan marka laga warramayo taariikhda had iyo goor waxay ka bilaabaanuun nebiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisii maadaama taariikhdeenu dee nebiga uunay ku salaysantahay calayhi salaatu wasalaam inta ka horeysa waxaad moodaa inaan wax badan laga sheegin ama wax badan dadku ka odhanin waxa ugu badan ee laga warramaa un inay tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dhalashadiisii mararka ugu badan waxa kale laga warramaa waa zamzamka iyo sidii uu qodmay iyo in la tilmaamo un ma'aasirtan reerkii uu nebigu ka dhashay inay reer meesha magaca kale ku ahaayeen hadduu yahay odaygii qusay ee magaalada degaankeeda iyo waxa kan waxaynu naqaanaa nebiga calayhi salaatu wasalaam marka laga warramayo nasabkiisa nasabkiisu 3 qaybood buu u qaybsamaa qayb culamaai taariikh ama culamaai siira dhammaanteed way isku waafaqsan yihiin qaybna aad bay isugu khilaafsan yihiin qaybna iyada waxaa laga sheegaaba waa iska war kutirkuteena 3 qaybood aynu tilmaamayna waxa weeyaan
qaybta ilaa cadnaan inta la gaadhayo cadnaan inta la gaadhayo oo 21 awow ka tirsan 21 ka tirsan culamada taariikhda soo warisa dhammaantood way isku wada waafaqsan yihiin yani nabiga in la oran jiray Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Munaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr Fihr waa ninka Quraysh la yiraahdo Fihr markaasi toban buu ka soo tirsadaa xagga dambe cadnaan iyo Fihrna toban kale ay kala tirsadaan 22 kaas iyaga waa la isku wada waafaqsan yahay waxaanay u badantay in thaabitiye marka cadnaan laga bilaabo ilaa iyo nabi ismaaciil la geynayo aad ba khilaaf badan u jira yani taariikh kala badan oo aad u kala gadisan oo aan isku xidhnayn ayaa markaas la tiriyaa laga bilaabo weeyaan cadnaan ilaa iyo inta la gaarsiinayo ismaaciil ama ibraahim xaga ka sii dambaysana markaa ka sii muran badan inaad nabi ibraahim u abtirisay ilaa aadam aad gaarsiisana kutub taariikh ama kutub siira intaba way qoraan مثلا waxaan filayaa inay cadnaan مثلا iyo ismaaciil meelahaas ilaa 40 baan u maleeynaa inay u dhaxaysiyaan laakiin inta dambe oo dhami waa iska murankeedu iska tiro badan yahay si qurana uma wada tilmaamna marka aynu hore uga socono inta tan waxaynu u gudbi karnaa waxyaabo ugu caansan waxa kamid ah bi'ru zamzamka iyo qodistiisa oo aynu nidhi waxa ugu asaxsan riwaayada ibn isxaaq laga warinayo ee cali ibn abi talib gaadhaysa sanadkeeduna xasan yahay ee sheegaysa inuu ku riyooday cabdilmutalib oo marafraadkii in loo tilmaamay ama aahaarta sheegaysa wixii uu ka soo saaray iyo kullaha waa riwaayo daciifa bay yidhaahdaan yani waxyaabo badan bay sheegaan oo uu meesha ka soo saaray oo ceelka markuu qodayo calaamado loo sheegay waxyaabo ka soo saaray kuwa aahaarta ku soo aroortoo dhami waa daciif wax badanna runtii ma sheegayaan afarka labaad ee inta badan la sheegaa waa qisadii ah waqtigii uu nabigu dhashay calayhi salaatu wasalaam ee caamul fiilka qisatul fiil iyada waxaynu naqaanaa quraanka sugay alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiil quraanka ayaa sugay culimada taariikhda qortaana waxay ku tilmaamaan inay ahayd 570 ama 571kii miilaadiyada tan imka 2001 maraysa marka 570 qaarkoodna waxay ku tilmaamaan 571kii meelahaas inay qisadaas duuduubkeeda oo dhan markaynu isu soo geynana waxa ay sheegaysaa yani baad saxaaba ayaa laga warwariyaa laakiin saxaabada laga wariyay waa saxaabo yar yar oo iyaga iyo qisada tan ilaa 50 sanadood meelahaas ay u dhaxaysay laakiin waxaad garan kartaa un aathar ka hadhay oo qisadan la wada yaqaan inay jirto mesela Aisha radiyallahu anha waxay sheegaysaa inay soo gaadhay يعني وسند صحيح سند حسن وكسو أرورتي عايشة وكله مثلا waxay sheegaysaa inay soo gaadhay oo ay aragtay iyadu maroodigii abrahankii waday iyo kii saayska wahaye meedmeedi jirayba labadaas oo indhoolayaal magaalada dawarsaday inay soo gaadhay yani maroodiyada nimankii waday nima kamida weeyaan oo indhoolayaal ah oo dawarsada inay soo gaadhay مثلا saxaabi yar oo la oran jiray Qabat ibn Shaym ba filaya isna wuxuu sheegayaa inuu soo gaadhay inay hooyadii tustay isagoo yar oo caruura hooyadii inay tustay saaladii uu dhigeen maroodiyadii nimankaasi wateen oo midabkeedu xataa isbedelay laakiin isaguna waa caamul fiilka waxoogaa buu ka horeeyay yani wiil yar oo waxoogaa jira sanawaada ayuu ahaa isna waa Tirmidhi baa warinaya ala kulli xaal qarayn badan baa tilmaamaysa ama qisadu siday u dhacday خلاصة القول وحلا شيء يعني إن أبرهة لورنشري أو حبشي أها مركي دول بدن سمايين ويسكت ضيان عربتان كسي سعوتك عبدن وحاجسين لقدوه أي أتاقوايين أي ميل سمايين ماشي وحي سوري عن رواية كاسين كستاني حوقنين إننا عربات كنيسة تسميه كنيسة وحن كجسميه على كل حال وح كستبها تاني كان أبرهة الله إلى هذا وحكوت لقى لي إنه الدولة أو سودميه أبرهة مركا وانين حبشيات
oo yaman xukuma xabashidu laba jeer ayay yaman kolba gumaysatay marka waa mar kamida kooxda tan abraha uu joogay waa markii dambe ayaan rajaynaya abraha wixii kasii dambeeyay waxaa qabsaday yaman persia marka nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu soo baxay nebinimada lagu soo dejiyey bershiyan baa haystay yaman eeraan baa haysatay waqtiga ay xabashidu haysatay meesha tan ayuu ciidan diray ciidankaasoo ugu talagalay inuu kacbada soo dumiyo laakiin ciidankaasi markii uu soo gaadhay maka duleedkeeda waa dulxas meesha la yidhaha markuu soo gaadhay baa la yidhahdaa bay fadhiisteen maroodiyadii marka xagga kacbada loo dareeriyana way fadhiistaan haddii jiho kale loo sii daayana wuu iska dareeraan meeshii iyagoo joogana ilaahay baa kusoo itixaamay tayran ababiil tarmiihim bixijaaratin min sijiil shimbirahaasi duulaya ee dhagxanta la dhacaya ayaa yimi shimbirahaasi dhagxantii bay dadkii la dhaceen dadkii badh meeshii bay ku dhinteen qaar waa xanuunsadeen abrahaha kan waxaa la yidhahdaa sancu isagu ku dhintay bay yidhahdaan isagoo googo-aya buu yimi oo xanuun kala ku dhacay oo dabeetana meeshaasu ku dhintay qisadaasi marka lasoo duudubo waxa ay sheegaysaa in la jebiyey un abraha iyo kooxdiisii sida qur-aanka naskiisa ku cad nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu tilmaamaa inuu dhashay sanadkaasi caamulfiil waxaa qisooyinka meesha la tilmaamo kamid ah nebiga calayhi salaatu wasalaam aabihii cabdilaahiya cabdilmualib bay waxay sheegaan inuu nadaray nadarkaana ibnu cabaas baa soo arooriyey sanad saxiixa kusoo saaray inuu nadaray cabdilmualib waqtiga uu nadaray riwaayad iska daciifa kusoo arooray laakiin marka la isku daro calaa kulli xaal mursal saxiix sanadkiisu xasan yahayna waa kusoo arooray waxa iyaduna duuduubkeeda sheegaysaa uun cabdilmualib markuu zamzamka helay qurayshtii kale ku qabsatay qurayshtii ku qabsatay waxaa lagu heshiiyey in la kala garbaxo riwaayaadkaasi qaar ka midi waxay sheegayaan inay qabteen sham iyo yamani xaggaa in la isla qabtay kaahinad joogtay habar falalawadii inay soo kala saarto dabeetana dhexda markii lasoo socday in biyihii madheen riwaayaadka qaarkood waxay leeyihin biyihii oo dhan baa madhay qaarna waxay leeyihin isagumaa biyihii ka madheen iyo intii la socday ee intii haysatay biyihii kamay madhan markii biyo la waayey kadibna ama fardihii uu fuushanaa mid kamid a adinkiisu meeshuu ku dhuftay baa ilaahay biyo ka siiyey riwaaya kaloo daciifana waxaan rajaynaya inaad sheegayso roob baa daay mid kastaba ha noqotee biyaa la helay dabeetana dadkii haraadka u baktii gaadhay mar labaad unbaa ilaahay cabdilmualib biyo ku siiyey dabeetana waxay dhahaan war ninkan mar dambe alla biyo inagu siiyey kuwii hore waxba yana ku qabsanin ha loo daayo zamzamkii saasaa loogu daayay baa layidhi waxay idhaahdaan caruur badan markaa muu lahayn bay leeyihin lagu haystay zamzamke wuxuu nadiray hadduu xoogaysto ilaahay 10 wiil siiyo rag iska dhicin karo inuu 10 ka mid kamid ilaahay u sadaqadeeyaba 10 ka mid kamid inuu ilaahay u sadaqadeeyo wax la yiraahdo 10kii wiil baa ilaahay siiyay dabeetana nadarkii wuu qorituuray baa la yiraahdaa qorituurkii wuxuu ku dhacay cabdilaahi dabeetana cabdilaahi inuu gowraco way ku adkaatay dadka bad waxay qisaska qaarkood sheegaan in falalawadu uu geeyo iyadoo ay tidhi isagiyo 10 halaad bay diyadu ahaan jirtay isagiyo 10 halaad u qorituuro cabdilaahi ku dhacday tidhi 10 kale ay cabdilaahi ku dhacdo 10 kale boqol ay ku garsay laakiin riwaayada fiicani iyadu waxay sheegaysaa inuu boqol iyo cabdilaahi loo qalin tuuray yani loo qorituuray qur'a loo sameeyay cabdilaahi iyo boqolka markii loo qorituurayna boqolkii halaad ayay qur'aadii ku dhacday marka nadarkii wuxuu ku dhacay boqolka halaad la gowraco cabdilaahina la sii daayo cabdilaahi marka wuxuu u guuriyay inan aamina bintu wahab looran jiray tafaasiisha sida loogu guuriyay iyo arrimaha ku saabsan kumay soo aroorin iyaguna dariiqo saxiixa asxaabu taariikh yani riwaayadaad u tiro badan bay iska soo arooriyaan cumuuman waxaynu leenahay uun wiilkaasi gabadha wuu guursaday dabeetana wuxuu qabtay madiina riwaayadan rajaynaya inay xasan tahay baa sheegaysa inuu u diray timir inuu uga soo iibiyo oo timir ka doono cabdilmualib uu uga diray madiina markii uu madiina yimina wuu ku xanuunsaday cabdilaahi markuu xanuunsadayna uu geeriyooday wuxuu geeriyooday riwaayadka saxiixisay sheegayaan iyadoo uurka uu ku jiro nabigu calayhi salaatu wasalaam culamada taariikh qaar baa qisas badan oo kala soo arooriya waqti
inuu nebiguba dhashay intan saro inuu jiray waxaa laakiin inta badani waa iska wada daciif waxaasi in sha allah waxa saxiixa inuu uurka isagoo ku jira uu dhintay nebiga aabihii calayhi salaatu wasalaam culamada taariikhna waxay wariyaanba islaantii markaa gabayo borordiiqo ay tirisay oo ay odaygeeda dee dhintay u tirinaysay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhashay markaasi maka dhalashada nebiga calayhi salaatu wasalaam war badanoo ustuuro ah baa laga sheega warar badanoo aan waxba ka jirin laakiin waxaynu isku dayaynaa waxaas aan waxba ka jirin tirada badan loo dhan inaynu iska dhaafno nebigu calayhi salaatu wasalaam magaalada maka ayuu ku dhashay sanadkaasi la yidhaahdo caamulfiilka caamulfiilkaasi oo u ahaa baynu odhan karnaa irhaas yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam alla wuu sii muujiyey oo yacni basharkao dham qadiyad ay sii fahmeen oo warkeedu dunidoo dhan uu gaadhay oo aada uu gaadhay qaabkii uu nebigu u dhashay waxa ku soo arooro oo dhami inta badan waa wada daciif iyo mawduuc iyo kadaab wuxuu ku jira waxaan khayr badan lahayn allahuma ilaa xadiid xasana jira xasan ligayrihi weliba isaguna ah oo sheegaya in ay ku riyootay nebiga calayhi salaatu wasalaam hooyadii nuur ka soo baxay oo qusuuru shaam oo dhan ifiyey kaasi waa in sha allah xasan ligayri ama wax allaaliya waxa kale ay ku soo arooriyaan ama ha noqoto qaabkii uurka nebiga ay uu siday oo wuu fududaayo kanbuu ahaa iyo waxaan may dareemi jirin iyo waxaasoo dhami waa iska uun waxaan sanad badan ama xoog badan loo haynin waxa la mida iyaguna kuwa sheegaya markuu soo dhacay nebigu calayhi salaatu qaar baale wuu soo booday inuu gacmuhunbu dhulka ku tahay laakiin waxaasoo dhami waxba insha allah waxba nebiga ku kordhin maayaan yani waxay dadku jecel yihiin in la buunbuuniyo laakiin buunbuunis risaalada u ah iyo wixii alla uu ku ammaanay siduu u dhashay wax badan waxba ku kordhin maayaan riwaaya daciifa sheegay isagoo gudan baabuu dhashay iyada lafteedu waa daciif qaar baa sheegay malakul jibriil baa guday iyada lafteedu waa daciif qaar baa sheegay inuu cabdilmualib guday iyana waa daciif laakiin waa iska macquul in la yidhaahdo cabdilmualib maadaama uu isagu hayay oo aanu aabihii uu dhintay oo awowgii ahaa oo isagu soo korinayay inuu isagu gudo oo xanaaneeyo oo taasi waxa macquul oo sida caadiga ah waafaqsan ama waxa kale la sheegayo oo dhami waa wada daciif waxba kama jiraan waxa kaloo lamida waxyaabaha axaadiista daciifka tirada badan leh ama mawduuca kadaabinta badani ku jiraan lagu soo arooriyo jin baa yeedhiyey oo wax sheegay ama sanamadii iyo macaabidii wathaniyiinta oo dhan baa daadatay ama boqortooyadii kisre iiwaankeedii baa soo dhacay ama buxayradii yaray saawo la odhan jiray baa biyo laga waayey ama dajla yani wax badan bay sheegaan laakiin kullu haadihi wax ka soo qaad male saasi daraaddeed waxaasoo dhan waa iska dhaafaynaa waxaynu ku daynaynaa inuu nebigu dhashay calayhi salaatu wasalaam hooyo ilmo caadiya siday u umushayna in loo umulay in nebigu calayhi salaatu wasalaam taariikhdii uu dhashay waxa ay culamada taariikhda qora isku wada waafaqsan yihiin waktiga la yidhaahdo caamil fiil laakiin maalin muu ka dhashay waa qadiyad iska muran badan maalan saaxib araxiiq almakhtuum wuxuu isagu leeyay mid waa laisku wada waafaqsan yahay axaadiis saxiixa ku soo arooray inuu nebigu isniin dhashay iyada taa muran kuma jiro inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin isniineed dhashay iyada wax murani kuma jiraan axaadiis saxiixina waa ku soo aroortay waana saas bay ku sugan tahay sanadkaasi caamulfiil inuu dhashayna waa inta badan culamada taarikhda waa isku wada waafaqsan yihiin laakiin goormay ahayd waxa mashhuura oo aada u caanbaxday oo dadku inta badan uu haystaa inay tahay 12kii rabiicul awal waa sida ugu mashhuursan laakiin wax ku asaxay ma jiraan ibnu isxaaq ayaa soo arooriyey 12kii rabiicul awal inay tahay ibnu isxaaqna sanad sugan kumuu soo aroorin dhalashadaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam inay 12keeda ahayd alwaaqidi oo aada uga sii daciifsan isagu wuxuu soo arooriyaa inay ahayd 10kii rabiicul awal abu macshar asindi ninka la yidhaahdo culamaa ilxadiid agtooda isagana daciifka ah
inkastoo ay dhahdaan basiir buu fi lmagaazi ku ahaa sidaa waaqadiyo kale isna wuxuu soo arooriyey labadii rabiicul awal saaxibu raxiiq almakhtuum wuxuu isagu qaatay maxmuud baasha alfalaki wadaadka la yidhaahdo taxqiiqiisa sida uu ku sheegay oo ah waxay baadheen isniintu meesha ay kaga dhacayso rabiicul awalkii sanadka ku beegnayd dabeetana waxay yidhahdeen isniintaasi waxay ku beegnayd 9kii rabiicul awal qoladaasina iyagu waxay ku tagtay iyagu aan taariikh ahaan daliil soo aroorinaynin soo waxay aroorinayaan ay tahay uun min xayta taariikh isniintaasi goorbay ku beegmaysay ayay eegeen maalmahaasi dabeetana waxay qaateen inay ku beegmaysay 9kii rabiicul awal dhankan kale marka la sheego bay yidhaahdeen waxay ku beegmaysaa 20kii ama 22kii ibril 571 sida uu qirayo weeyaan moxamed sulaymaan almansufuri isku soo duuduub waxaa loo badan yahay inuu rabiicul awal qaybteeda hore waqti ka mid a dhashay nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin bidabdi midi ma jirto walidalik raggan mawliidka wadwada iyo waxa kani meelaa laba hubin bay u mawliidsanayaan yani in mawliidsato waxaa ka horeysa inaad maalintii inay tahay in la garto laakiin waxay ahayd haddii sunno la rabo in isniintaa sunno ahee la soomo kaasaa ku filan yani nebigu calayhi salaatu wasalaam marka la eegayo maalan qadiyadda mawlidka ku saabsan dhalashada ku saabsan muu tacdiiminin tii ku saabsanayd taariikhda maalintay ka ahayd ee waxaa la weyneeyey maalinta toddobaadka maalintay ka ahayd idan haddaad rabto nebiga calayhi salaatu wasalaam weynayntiisii wuxuu nebigu weyneeyey maalintuu dhashay oo isniina mawlidkeenu inta badan isniinba kuma beegmo mar jimcaynu mawlidnaa mar khamiis baynu mawlidnaa mar laakiin asalku waxa weeyaan in la mawlido unbay ahayd maalin isniineed isniintuna waa inaad soonto qaabka loo mawlidaana waa kaati qaabka uu nebigu jideeyeyna waxa weeyaan in maalinta isniinta ee wiig walba ku jirta inay sunno tahay in la soomo wahada yakfiina ama wax laaliya waxaan kale soo aroora isagu wax badan oo sanad ah ma laha waxa timi nebiga calayhi salaatu wasalaam markaa uu dhashay ciddii naas nuujisay hooyadii mooyaane yaa kale naas nuujiyey xadiidka saxiixahi wuxuu ku soo arooray marka hore inay naas nuujisay thuwayba gabadhii la odhan jiray oo ahayd gabadh addoona oo uu leeyahay adeerkii abilahab ninka la odhan jiray ee nebiga calayhi salaatu wasalaam kuwii u colka ahaa markii uu nebinimada nebiga la siiyey markanuu nebigu yaraaye dhashay un dee inaan adeerkii dhalay unbuu u arkayo waa buunbuuninayey markaas gabadh addoona uu lahaa oo ilmo dhashay oo naas nuujinaysa ilmaheediibuu u keenay uu yidhi naas nuuji waana gabadhaasi tii naas nuujisay xamsana walidalik baa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo adeerkii xamse naas nuujinta walaalay ku ahaayeen xamse iyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam naas nuujinta walaalay ku ahaayeen oo labadaba waxa wada naas nuujisay thuwayba islaantaa la odhan jiray waxaa timi xaliima sacdiya qisada dheer ee ay soo arooriyaan asxaabu siira sanadkeeda muran badan baa ku jira culamo badanina way diidaa sugnaanteeda laakiin waxaa sugan kollayba in nebiga qabiilkaa reer bani sacad la yidhaahdo iyo islaanta xaliima sacdiya la yidhaahda inay naas nuujisatay iyadoo ay sugantay tan aynu leenahay ibnu isxaaq aynu leenahay qisada dheere la tilmaamo waa qisada tan iyado ee sanadkeeda muranku ku jira waa qisada sheegaysay in wakti abaareed ay ahayd oo iyadoo abaar tiro badan ay iska jirto ay gabadhani dumar kale soo raacday dameer yaroo ay lahayd ay soo fuushay dameerkeeda tamar darri daraaddeed kolba loo joogsanayay kadib ay maka yimaadeen ay isku dayeen inay ilmo ay naas nuujiyaan inay helaan waayo carabta caadadeeda waxa ahayd maadaama maka ay magaalo ahayd ahlu xadar oo reer magaala waxay odhan jireen carruurtu si ay caafimaad fiican u hesho magaalada laga saaro baadiyaha kusoo koraan caanahana baadiyaha kusoo cabaan waxay u arki jireenna carruurtu markay baadiyaha kusoo kobocdo inay adadkaato ay fiicnaato oo kuwa magaalada inay ka wanaagsan tahay saasi daraaddeed carruurta inta badan baadiyaha loo diri jiray islaamaha baadiyaha ee naaskoodu irmaan yahayna naaskooday ku xoogsan jireen oo intay magaalooyinka yimaadaan bay kuwa tujaartu dhashay iyo carruurahaasi meelaha ay odhan jireen keen ilmaha kuusoo naas nuujisi oo kuusoo koriye dabeetana waa lagu maal siin jiray xoolaa lagu siin jiray qisada ibnu isxaaq siduu soo arooriyey wuxuu leeyahy markii ay magaalada yimaadeen ee dumarkii carruur soo wada helheleen moxamed waa la wada dhaafaya baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam waayo inan yaroo aan aabba lahayn
awowbaa waxoogaa ku siin doona waa iska nin aabihiin nooliyey baa la daydayanayay saasi daraaddeed waxay leeyihiin waa la iska wada dhaafdhaafay magaaladii baan soo marmaray bay leedaa wax la dhaafdhaafo aan kan dhaafnaba markii aan wax kala soo waayey ayaan sidhi bay tihi dee faramadhnaan hala noqonine haatan wuxuun kusii faralaabo markaasaan iska soo qaatay bay tihi agoonkan yare awowgii leeyahay hala soo naasnujiyo saasaan kusoo qaatay bay leedahay sidii baa kusoo baxday laakiin waxay sheeganaysaa markaa iyadu wax badan inay ka aragtay naaskii bay nuujisay oo dabeetana naaskii iyadoo aan waxbaba cunin unbuu iska dararaayo isaga iyo kii yaraayo kale la jaqayayba uu ka tiro batay oo xoolahoodiibaa ilaahay u irmaaneeyo caanihii iyadoo abaara oo xataa reeruhu yidhaahdaan dadka kale war maxaa halka reerkani xoolaa daajista idina u soo daajin weydeen waa lala soo daajiyaa un dadka kale oo waxba kuwooduma soo faa'iidaan ee uun islaantan xoolaheedunbaa darara barakaadkaa tirada badan le adigu nusuusta sheegtaa waa ma xoog badna sanad ahaan ma xoog badna culamaduna wax badan bay ka sheegaan laakiin in ay xaliimi naas nuujisay iyadu way sugantay xaliima sacdiya islaanta la yidhaha inay naas nuujisay riwaayaadka sheegaya ee axaadiistu waa sugan yihin insha allahu tacaala intii ay islaantan uu la joogayna nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacday mucjisadii laabtiisa dilaacinta ah nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista saxiixa iyaduna waxay sugaysaa 2 jeer in jibriil uu qalay mar waa markii israa wal mi'raajka marna waa markan uu yaraa markan uu yar yahay ee uu qolada tan la joogay xaliima sacdiya gurigeeda uu joogay waxa ay nusuustu sugaysaa in nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ciyaal kale la cayaaraya sida xadiiskii saxiixu muslimkaba ku yaalay inuu jibriil u yimi isagoo ciyaal kale la cayaaraya dabeetana jibriil inuu legday inuu dabeetana laabtiisa dilaaciyey in qalbigiisa wadnihiisa lasoo saaray wadnihiisa dabeetana calaqa xinjir yar inuu ka soo gooyey xinjirtaasi inuu yidhi waa xadu shaydaani minka waa qaybta shaydaanu nafta ku leeyahay yani qof kastoo bini aadama malaguna waa la xidhiidhaa shayaaiintuna waa la xidhiidhaa lama khayrka lagala xidhiidha iyo mid sharka lagala xidhiidhaa jira kaa sharka lagala xidhiidha markaa nabiga isaga laga saaray calayhi salaatu wasalaam jibriil markaa wuu qalay wuxuu ka soo saaray wadnihiina calaqada yar xinjirtaa yar buu ka tuuray dabeetana wuxuu ku sheegay inay tahay xaddu shaytaani mink wuu maydhay tisti dahaba oo maa u zamzam ay ku jiraan ayuu ku maydhay dabeetana uma la'ama dib buu isugu geeyey meeshiisii buu ku celiyey serjarigaasi ama qalliinkaasi waxaa sameeyey malakul jibriil axaadiis saxiixaana ku sugan inuu jibriil u sameeyey qalitaankaasi carruurtii yaryaraydna waa carartay markaasi oo islaantiiba u tageena waxay yidhaahdeen wiilkii yaraa la dil oo dee waxay arkeen halkaa isagoo lagu legdayey waa markii dambe islaantii soo carartayna waxay u timi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo midabkiisii isyaro bedelay ila waa nin qalliin lagu sameeyey dabeetana anas ibnu malik oo xadiidka warinaya wuxuu leeyahay tolmadii raadkeeda waan ku arki jiray buu yihi nabiga calayhi salatu wasalam anas waa ninkii wiilkii yaraaye u shaqayn jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu nabigu u hijrooday madiina 10 sanadood oo madiina joogu nabiga khaadimu ahaa anas ibnu malik saxaabiga la yidhahda markaa wuxuu leeyahay nabiga waan ku arki jiray buu leeyahay halkii uu ka tolay malakul jibriil khaydka waan arki jiray buu yidhi meeshaasi xaliima sacdiya markii ay aragtay in wiilkii dee arrimahan in ay kusoo kordheen bay u cabsatay dabeetana way soo celisay masaladaa sheegaysa inay u cabsatay musnadu imaamu axmed bay kusoo aroortay laakiin sanadka ayaa laftiisa wax laga yaro tilmaamaa nin baa la yidhaha muddo lasoo cancaneeyey baa ku jira insha allah sanadku waa xasan haddii ninkaa cancanadiisa oo tasriixa la helo calaa kulli xaal islaantaasi waxay ka cabsatay maadaama ay aragtay wiilkii wixii ku dhacay oo dhan way cabsatay waxay istiri ilmahan yuu wax kugu noqonin haddaba reerkoodii isaga celi dib bay usoo celisay waxay keentay markaasi magaaladii maka ahayd ayay kusoo celisay waxaanay gacanta ka gelisay markaa reerkoodii hooyadii baa gacanta laga geliyey hooyadiina markii ay muddo yar haysayba way geeriyootay waxay qabatay baa la yidhaahdaa makay usoo kaca madiinay soo qabatay iyadoo rabtay abtiyaasheeda ama wiilka abtiyaashiina inay soo tusto isla markaasi inay soo eegto xabaashii odaygeeda dabeetana markii ay kasoo noqoto ay dhexda soo socoto
ayay dhexda ku go'day siday culimada taariikh sheegaan alabwa meel la yiraahdo Makka iyo Madiina dhexdeeda ah ayay nabiga calayhi salaatu wasalaam hooyadiina ku dhimatay halkaas waxa ka soo qaaday gabadhii khaadimada oo ahayd waa nabiga markii aabihii dhintay wuxuu uga tagay baba la yiraahdaa 5 neef oo geelan filaya iyo in yaro adhiya iyo islaan madow oo Ummu Ayman la oran jiray oo nabiga calayhi salaatu wasalaam tiisoo xaadinada u ahayd ee soo korisay marka Ummu Ayman iyo Abdul Muttalib oo odaygii hayayba iska hayay saas baa Abdul Muttalib uu ku hayay ilaa iyo isaguna intii uu ka geeriyoonayay waxa la yiraahdaa 8 jir meelaha markuu ahaa iyadana sanad saxiix kuma soo arooreen oo culimada taariikhda ay sheegtaan 8 jir meelaha markuu ahaa buu geeriyooday Abdul Muttalibna markaas baa lagu wareejiyay adeerkii Abi Talib nin xoolo badanna ma ahayn laakiin carruur badanna uu ahaa mana xoolo badnayn haddana nabiga calayhi salaatu wasalaam muddo aad u badan ayuu maciisa ahaa ilaa iyo intuu dhowr iyo 40 jir gaadhay nabiga calayhi salaatu wasalaam si weyn buu maciisa u ahaa in badanna uu la soo wax ka soo rabay inkastoo aan ilaahay ku anfacin diintiisii waanu rumaynin Abi Talib isagoo 40 sano nabiga u soo gargaarayay in ku dhow haddana gaalnimo buu ku dhintay walidaalika nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu markii u dambeysay uu dhimanayay waa ku kulaha kelimo aan ilaahay aakhiro wax kugu weydiiyuun dheh laa ilaaha illa allah ku dheh markuu isiraado laa ilaaha illa allah dhana habar qabi Abi Jahl oo meesha fadhiya yiraahdaa waa ceeboobaysa ma maanta adinan ka yar raacday adigoo Qurayshoodaygii ay daba fadhiday ee saatan oo halkaas uu saaray kadibna gaalnimadii buu iskaga dhintay waana ku nabigu calayhi salaatu wasalaam cid gaala oo nabigu uu shafaaci doono isaga jira laakiin shafaacadiisu ma noqonayso mid naar lagaga saaree waxa naarta kulule weyn baa laga geynayaa iyo waxa loo geynayaa naar yar oo aan 2 kabood oo naar loo galinayaa laakiin waa 2 marka loo galiyo buu nabigu yiri madaxiis yaani dahdah min an-nar ila qoobka naar joogto unadu ma kaba noqoto ama wax laga noqotay ayaa la gelinaya laakiin taasa madaxiisu ka fakhlaynaysa xagga sare waa cadaabkaas oo Abi Talib galaya noocaasiya idan ninkii gaalnimo ku dhintaa abahay baa sheekh ahaan jiray iyo adeeraday baa awliyaa waxba ku heli maysid haddana dadku mid khayr qaba noqonin walidaalika baa quraanku wuxuu kaloo inoo tilmaamayaa bade nabi wiilkiisu ahlu naarka kamidi nabi nuux soo quraanku inoo sheegay wiilkiisii u taag waayay oo la warkaalay aniga soo raaco doon soo raaco laha buurtan ka fuulay ayaa iska tag quraanku wuxuu kaloo inoo sheegayaa nabiyo haweenkooda ay ahlu naar noqonayaan xaasaskoodu markay raaci waayeen oo waa ka imraatu nuux wa imraatu lut kanata tahta abdayn min ibadina salihin fakhanatahuma falam yughni anhuma shay'an waxa kaloo cagsiga quraanku inoo sheegaya haween ilaahi rumeeyay oo ragoodu gaala aha iyaguna jannada galaya wa imraatu fir'aun ilaahi aayadkaasi kaga waramaya idan Abi Talib baa muddo soo hayay Abi Talibna qisas badan baa laga sheegay intuu nabiga hayay calayhi salaatu wasalaam laakiin maadaama aanan u haynin riwaayad saxiixa insha Allah iyana iskaga boodayna waxa inta la raaciyaa waa tagistii uu nabigu isagoo dhowr iyo 10 jir ah u tagay buhayra oo raahib iyo wixii lamida insha Allah halkaas inuu baraka bilaabi doona wallahu a'lam billahi tawfiq